antu safaaradaha hadaba ku yaala meelaha qiimaha leh waxa kamid ah safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Brussels ee xarunta waddanka Belgium sida idin muuqata safaaradani waxay ku taalaa meelaha ugu qaalisan ee magaalada Brussels waxaana gabi ahaanba aagan ku yaala safaarado fara badan oo qaarkood ay leeyihiin wadamada hantida leh ama hore u maray caalamku haddaba safaaradda Soomaaliya oo imika dayactir lagu sameeyay ayaa hawlaha ay qabtaan iyo sida ay tahay xaaladda safaaradda Soomaaliya oo dhismaheeda ay leedahay dalka Soomaaliya waxa iga waramaya ambassadorka Soomaaliya oo jooga magaalada Brussels ambassador Ali Said Faqi Mr. Ambassador aad baan ku salaamaya iska war assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida ka warqabtid sartatan aad u jeedid waxa iska leh qaranka Soomaaliyeed waa safaaradda Soomaaliya ee Brussels EU-da sida aad u jeedid waxa diris nala ah wadanka Austria waa wadan la yaqaan European Union ah waxa ku xiga wadamada sida Tanzania Niger xagga waxa iga xiga Saudi Arabia Kuwait Japan dhinaca waxa ka sii xiga markiro Sudan iyo maaragtay iyo dawlado fara badan oo ay Qatar ay kamid tahay marka jidkan oo dhammi wuxuu caan ku yahay safaaradaha meesha jidkan Franklin Roosevelt baa la yiraahdaa waxa loogu magac daray madaxweynihii hore ee Mareykanka waa safaaradaha ayuu caan ku yahay wadamo fara ku tiris oo Afrikaan kaliya ayaa degan intooda kale waxay u badan yihiin wadamo Carbeed iyo wadamo waaweyn oo horumaray maaragtay Mr. Ambassador inta aynaan u gelin hawlaha imika qabataan sideed u aragtaa Soomaaliya oo kamid ah wadamada saboolka ah ee caalamku in waqtigii safaaraddan la iibiyay ay halkan oo kale ka iibsadaan dhismaha oo Sacuudiga iyo Austria iyo ay jaar la noqdaan aniga waxaan aaminsanahay runtii waxay ku tusaysaa in maaragtay waaga Soomaaliya horumar heer sare ay taagneed go'aan oo dawladeed oo markaa jiray lagu iibiyay guriga kan aad u jeedid maanta haddii guriga kan uusan jiri lahayn ma garanayna meel safaaradda laga dhigi lahaa taa waxaa runtii ku tusaysaa in Soomaaliya burburkeedii dhibaato weyn naga soo gaaray maaragtay aan runtii wax lagu faani karna aan qabno guriga kan oo kala aad u jeedid oo magaalada maanta haddii la yiraahdo waa qiimihii waa ilaa 3 milyan oo dollar ah waxa ka sii daran guri kale oo sii burburaayo oo safiirka gurigiisa residency-ga safiirka oo ku yaala gurigiisa safiirku uu degi jiray banaanku ku yaala inta ka hor waxa deganaan jiray dad ajnabi ah oo reer Brussels ah oo guriga jabsaday oo degay muddo 17 sano ku dhawaad ayay deganaayeen sanadkii 2015 ayaanu ka bixinay gurigii hadda laakiin markiin dayactir looma haayo meeshiis ayuu ku burburayaan nasiib darro maaragtay gartay marka adigu ambassador ahaan waxaad qaabilsan tahay waddanka Belgium iyo European Unionka wadamadee ayaa hawshaadu ay khusaysaa ani waxaan qaabilsanahay wadamada la yiraahdo Benelux Belgium Luxembourg iyo Netherlands waxaan kaloo aan maaragtay wakiil uga ahay Soomaaliya maaragtay ururka midowga Yurub waxaan kaloo wakiil ka ahay safiirka Soomaaliya ee Faransiiska inta wadan ayaan isla hayaa maaragtay mas'uuliyad oo aad u ballaaran iyo howlo badan oo qaranka ayaan u qabanaa way Mr. Ambassador gudahaynu galaynaa si aynu dhismaha soo eegno sidaad u jeedid inta dad waxa noo yimaado Soomaali oo kala duwan ah marka qaarna iyagoon Soomaali ahayn ayay waxay sheegtaan inay Soomaali yihiin way isku dhiibeen marka hooshayada waxay tahay inaan xaqiijino inay Soomaali yihiin qofaan Soomaali ahayn documenti ma siino ma garatay marka waxa dhacdaa in maaragtay dadka kan hadda u jeedid gabadhan oo kale iyo dadka hadda u jeedid gabadhan oo kale gabdhahan u jeedid waxay sheeganayaan baajuun Soomaaliya marka qaarkood waa run ka dhab dad masaakiin oo Soomaaliya baajuuna soo qaxday oo wadankan timid oo raadinay Soomaalnimo in la sii loo aqoonsado warqadaha aqoonsiga Soomaalnimada in la sii laakiin qaar kale waxa jiro oo maaragtay reer Tanzania ah oo muslim ah ama reer Lamu ah ama reer Mombasa ah oo halkaan yimaado
oo sheegto inay baajuun yihiin maadaama labada af ay isku hal yihiin ay isku dhadhow yihiin baajuunta iyo sawaaxiliga marka waxay sameeyaan inay nagu qaldaan laakiin annaga waxaan sameeynaa boqolkiiba boqol dadka waan imtixaanaa waxayna keenayaan shakhsiyaad ninkan kan oo kale ninkan kan hadda ujeedid oo runtii aan naqaan inuu Soomaali band uu yahay baajuuni marka asaga ayaa waxa uu nin oo runtii qiimo badan oo aad u qiimo badan oo muslim isaga marka idin kala saaro asaga marka noo kala saaro wuxuu yiraahdaa war maaragtay dadka kan waa baajuun iyo dadka kan ma baajuun sidaa darteed ayaan ku kala saarnaa maaragtay